iyadoo maalmihii u dambeysay oo cadaadis soo fuulayay Soomaalida ku nool dalka Turkiga gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Ankara ayaa arintaasi waxaa si weyn uga hadlay muwaadiniinta ku nool dalka Turkiga kana soo jeeda dalkani khaasatan santarka Kislay haddaba ganacsatada kala duwan ee tagsiilayda iyo waliba muwaadiniin ay Soomaalida ku xidhnayd oo dalka Turkiga u dhashay ayaa arintaasi waxa ay wax laga xumaado ku tilmaameen in booliska wadanka Turkiga uu markaasi qabqabanayo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga kuwa sharcigoodu uu saxan yahay lana saarayo bay dhaheen wase hadalka u dhigeen xilli ay la hadlayeen warbaahinta waxaana sheegeen in dadkaasi oo sharcigoodu saxan yahay sifa sharci darro lagu xidhayo waxayna Soomaalida ay ku tilmaameen in ay yihiin dad iyagu aan marnaba ka shaqaynin amni xumada Soomaalidu ma aha kuwa weligood dhibaato u geystay muwaadiniinta Turkiga wax dhib ah oo ay geystaan ma jiraan waa dad wadanka ku nool isla markaasina lacag haysta kuna shaqaysta wax soo saar weyn soo geliya dalkan Turkiga ganacsatadan iyo muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Turkiga ee Soomaalida sida weyn u amaanay ayaa waxa ay sheegeen in booliska iyo guud ahaan xukuumadda wadankani ay ka codsanayaan in culayska laga fududeeyo waa siday hadalka u dhigeen waxaana ay sheegeen isla mar ahaantaasna marar badan ay ku soo celiyeen in ganacsatada Soomaaliyeed ama muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Turkiga ku nool ay yihiin kuwa iyagu marnaba aan amni xumo ku ahayn dalkani Turkiga muwaadiniintan oo la hadlay warbaahinta Il-Khatifi ayaa iyagu waxa ay sheegeen in Soomaalidu ay tahay kuwa iyagu markaasi aan mudnayn waqtigani in cadaadis badan la saaro derdinde ama sürekli bu şekilde baskınlar olduğu zaman hani bir de şeydir yani gerekli gereksiz. Yani ortada hiçbir şey yok. Yani sorun ne? İşte geldim yani kendimiz görüyoruz burada. İnsanlar alıyorlar 15-20 dakika bekletiyorlar. Bir kimlik kontrolü vesaire yapıyorlar. Tamam kimlik kontrolü yaparsınız ama hani müşteriyi rahatsız edecek kadar, müşteriyi içeriden yani oturduğu yerden kaçıracak kadar hani korkutacak kadar da yani bu derece olmaz. Yani 3 günde bir, 2 günde bir, 5 günde bir, haftada bir mutlaka oluyor. Sadece burada da değil, kafeye yönelik de değil. Gidin şimdi Kızılay AVM'nin önüne bakın. Sadece siyahi kişiler çevriliyor. Bak sadece siyahiler. Bunlara yönelik bir şeyler var. Hani sebebini biz de anlamıyoruz. Döviz getirisi diyorlar. İşte al sana döviz getirisi. İnsanlar buraya geliyor. Kimi öğrenci olarak geliyor, kimi hasta olarak geliyor. Kimi turist olarak geliyor. Şimdi bu adam nasıl turist olarak gelsin ki sen bunu yaparsan? Şimdi burada geldin çevirdin adamı. Aşağı indin 200 metre aşağıda Kızılay AVM'nin önünde çevirdin. Bu adam sana turist olarak nasıl gelecek de memleketi gezecek para kazanacak ya da nasıl gelecek de hastaneye tedavi olacak? Gelmiyorlar. Ne yapıyor adam? Hindistan tercih ediyor. Hindistan'a gidiyor işte. Yani bu hepimizin sorunu. Biz de rahatsızız bunun. Tabelalarını söktürdüler bakın. İşte orada görsün kamera. Tabelalarını söktürdüler. Neymiş? İsmi Somaliceymiş. İngilizce var. Fransızca tabelası olan insanlar var. Almanca tabelası olan insanlar var. Ya tabelayı söktürmek ne demek ya? Böyle bir mantık var mı? Şimdi ister istemez bu insanlar da şunu zannediyor.